Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan idin ahaantiin badda wadayaal waxaad kusoo dhawaataan warka Star oo idinkaga imaanaya stuudiisa magaalada London. waxaana caawa diyaar idinkugu ah anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. Marka hore waxaad kusoo dhawaataan qodobadeena wararka ugu waaweyn. Golaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindis sharciyeedka xakamaynta hubka baarlamaankana u gudbiyay si ay u meel mariyaan. ciidanka nabadgelyada magaalada Boorama ayaa gacanta ku dhigay nin ku labisan dharka haweenka isla markaana ka ganacsanayay suuqa Boorama. in ka badan 150 arday oo ka qalin jibisay iskuulka Iftiin oo maanta xaflad qalin jibin ah Muqdisho ku qabsaday. magaalada Baydhabo oo maanta madaxweyne ku-xigeenka maamulka 6 gobol lagu doortay. munaasabad ay ku qalin jibiyeen arday wax ka baratay iskuulka Subar oo maanta Muqdisho ka dhacday. gudoomiyaha beelaha Arab Bari ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xiisad colaad ee ka taagan waqooyiga Burco. wariye Faadumo Yuusuf Saciid Taxadir oo kamid ah wariyaasha TV-ga Star ee magaalada Boosaaso ayaa ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay u taxaabeen xabsiga tiro dhan 1.2 bilyan oo kombiyuutar ah oo muddo gaaban lagu jabsaday. intaasina waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararkeena ugu waaweyn. haatan waxaad kusoo dhawaataan isagiyo faahfaahsan. warkiyo fidsan. golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindis sharciyeedka xakamaynta hubka baarlamaankana u gudbiyay si ay u meel mariyaan. warbixintaani waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariye Cabdikariin Sujaac. golaha wasiirada Soomaaliya kulankii khamiislaha ahaa maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku meel mariyeen xeerka hubka oo muddo hor yaallay golaha wasiirada waxaana golaha wasiirada hadda ay u soo gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya iyagoona isku waafaqay in xeerkaasi uu ansax yahay. waxaana arintaasi warbaahinta maanta u akhriyay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli. in maanta golaha wasiiradu ay mar kale ka doodeen hindis sharciyeedka xakamaynta hubka wax dila golaha wasiiradu dood dheer kadib waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen hindis sharciyeedkaas oo u gudbi doona hadduu ilaahay idmo golaha baarlamaanka. xeerkan waxa uu abuurayaa ama uu unkayaa sida aad la socotaanba in la caddeeyo arrimaha la xiriira iibka hubka, soo dejinta hubka, dhoofinta, is-amaahinta, farsamaynta, dayactirka, tayeynta, dallaalidda, deefsiga iyo ka ganacsiga guud ee hubabka wax dila ee gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. hubka wax dila dabcan saad la socotaan waa fal dambiyeed ama waxaa loo yaqaana criminal offense, waana hubka la iibsado ama hubka laga ganacsado intaba. noocyada hubka wax dila marka la eego xeerkan sida uu qeexayo waxaa ka mid noqon kara qoryaha xabaduhu ay ka dhacaan, bastooladaha, bambaanooyinka, miinooyinka, madaafiicda, rasaasta iyo xabadaha kala duwan, baaruudaha, budooyinka wax qarxiya, sumaha kiimikada iyo biologiga iyo wixii kale ee hub ah. sidoo kale golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka waqaafta arrimaha diinta Ridwaan Xirsi ayaa waxa sidoo kale ay ku soo hadal qaadeen qoraallo ay u soo gudbisay wasaaradda amniga oo ay uga hadlayso howlgallo laga sameeyay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dal lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen dilkii xildhibaan Aadan Mandeer oo Muqdisho lagu dilay. waxaana Ridwaan Xaaji Cabdiweli mar kale uu sharaxayaa wasaaradda amniga qoraallada u soo gudbisay. in maanta golaha wasiiradu ay mar kale ka doodeen hindis sharciyeedka xakamaynta hubka wax dila ama hubabka wax dila. golaha wasiiradu dood dheer kadib waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen hindis sharciyeedkaas oo u gudbi doona hadduu ilaahay idmo golaha baarlamaanka. xeerkan waxa uu abuurayaa ama uu unkayaa sida aad la socotaanba in la caddeeyo arrimaha la xiriira iibka hubka, soo dejinta hubka, dhoofinta, is-amaahinta, farsamaynta, dayactirka, tayeynta, dallaalidda, deefsiga iyo ka ganacsiga guud ee hubabka wax dila ee gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. hubka wax dila dabcan saad la socotaan waa fal dambiyeed
ama waxaa loo yaqaana criminal offense waana hubka la iibsado ama hubka laga ganacsado intaba. noocyada hubka wax dila marka la eego xeerkan sida uu qeexayo waxaa ka mid noqon kara qoryaha xabaduhu ay ka dhacaan, bastooladaha, bambaanooyinka, miinooyinka, madaafiicda, rasaasta iyo xabadaha kala duwan, baaruudaha, budooyinka wax qarxiya, sumaha kiimikada iyo biologiga iyo wixii kale ee hub ah. cabdikariin shujaac, Star TV, Muqdisho. ciidanka nabadgelyada magaalada Boorama ayaa gacanta ku dhigay nin ku labisan dharka haweenka isla markaana ka ganacsanayay suuqa Boorama. ninkani ayaa waxaa soo sheegay haween markaasi garatay inuu yahay nin. warbixintaani waxaa magaalada Boorama inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Sharbiyare. dhacdadani waxay noqonaysaa mid ku cusub guud ahaanba gobolka Awdal kadib markii ciidanka bilayska gobolka Awdal ay gacanta ku soo dhigeen nin ku labisnaa xijaab iyo niqaam isla markaana ka ganacsanayay suuqa weyn ee magaalada Boorama. haddaba gacan ku qabashada ay ciidanka bilayska nabadgelyada ee gobolka Awdal ay gacan ku soo dhigeen ninka ku labisnaa dharka haweenka ayaa waxa uu fududeysay gabadh muwaadinada oo ku nool gobolkani Awdal gaar ahaan degmada Boorama. taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Awdal mudane Cabdi Khayr Araweelo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ninkan baadhistiisu ay socoto isla markaana guud ahaanba ummadda Soomaaliland fariin u diray. ninkii nigu arkaysiinay maskaraadka xidhnaa oo dharka dumarka ku labisay oo kumbuleeda nooca la isku qariyo niidaaga iyo indhaha iyo wajiga lagu qariyo u labisan kaasoo baadhistiisa ay socoto sababta ku kalisay ilaa imkaanaan garanayn oo dhammaystir doono mar dhow baadhistaas ayaan si dadka loogu wacyigeliyo oo mar kale haddii ay arkaan qof kasta oo muwaadin ah oo reer Somaliland ama gobolka degan haddii ay la kulmaan mar kale say booliisku soo wargeliyaan noocyada iyo wixii la mid ah waan yara dareensanayn baryahanka xanta waan haynay waana madaxoogiyo inta kalena waa soo dhamaystir doonaa haddii la yidhaahdo mar la ilaabi karay oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya gabadhii ogaatay ibliiska ugu yeedhay ee garatay wuxuuna naagahay uu nin yahay oo la yiraahdo magaceeda Amina Caatay Cabdi. gabadhana waa u mahadnaqayaa ilaahay idinkii dadka kale ee gobolkana waxaan rajaynayaa in sida gabadha dareenkooda uu shaqeeyo wax ka soo garan waayeen ciidanka booliska la soo socodsiiyay. si kastaba arrintu ahaatee howlgalkana ciidanka bilayska nabadgelyada ee degmada Boorama ay ku soo qabteen ninkan ku labisnaa dharka haweenka ayaa waxay noqonaysaa mid ku cusub guud ahaanba degmada Boorama. in ka badan 150 arday oo ka qalin jabisay iskuulka Iftiin ee magaalada Muqdisho ayaa maanta xaflad waxa lagu qabtay isla magaalada Muqdisho. warbixintaani waxaa eegaya Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim Cabdiraxmaan Gacan. ku dhawaad 200 oo arday oo waxbarashadooda dugsiga sare ka dhameeyay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Iftiin ayaa munaasabad ay ku qalin jabinayeen waxa ay maanta ku dhigteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen arday macallimiin waxgarad iyo salaadiin. ustaad Cabdullaahi Cali Maxamed oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sharaxayaa habka uu u shaqeeyo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Iftiin. iskuulka waxa la aasaasay dabayaaqadii 2014 waxaa lagu aasaasay barwaaqo deegaanka gudta gaar ahaan xaafadda barwaaqo. maalintii la aasaasayay waxaa lagu bilaabay waxbarasho lacag la'aan oo aan qofka wax lacag laga qaadin. ardayda ka faa'iidaysata oo maanta fadhida runtii xusuus gaaran ay u leedahay arrintaas. waxay leedahay maadiisa in iskuulka si loo badbaadiyo u sii jiro loo baahday inay dhaqaale bixiyaan dadka ardadooda wax la barayo. markay ogaadeen ay dhimiyeen muhiimadda ay tacliintu leedahay waxay ogolaadeen inay bixiyaan qarash. aad ayaan ugu mahadcelinayaa iyaga. qaar ka mid ah ardaydii maanta ka qalin jabisay dugsiga Iftiin oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda sida uu yahay iyagoona noqonayo dufcadii afraad ee ka qalin jabisa dugsiga Iftiin. aad ugu faraxsan aad soo koobay farxadeyda rajayna insha Allah taala inaan arshayda si wato aan ka
magacaygu waa Hanad Cabdikariin Maxamed maanta oo tahay maalin khamiis waa maalinta ugu farxadda badan taariikh weyn ay ah waa maalintan qalin jabinaya xafladda qalin jabintana ay ka dhacayso Hotel Peace waana ku faraxsanahay mana qiyaasi karo shucuurta intay leegtahay ugu magacaygu waa Cabbaas Cali Xuseen Cabbaas Galaar kana tirsan ardayda sanadkii afraad ka qalin jabinaysa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Iftiin aad baan ugu faraxsanahay farxaddayda qalin jabinaysa xilliga levelkii koowaad ee waxbarashadeeda oo ka dhici doonta oo ka dhacaysa maanta Hotel Peace aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaasha Cabdiraxmaan waxaan ka tahay maanta ardayda ka qalin jabinaysa iskuulka Iftiin juhdi dheer aan soo marnay maanta waxaan waxaan rajaynaynaa waxbarashadeena inaan hore usii wadno ilaa heer jaamacadeed ilaa PhD aan ku gaarno insha Allah waan mahadsan cabdiraxmaan maxamed ibraahim Star TV muqdisho halka aad weli naga daawanaysaan daawadayaal waa Star TV studiisa magaalada London magaalada Baydhabo oo maanta madaxweyne ku-xigeenka 6 gobol lagu doortay warbixintani waxa ay noo soo diray wariye Maxamed Aadan Socdaal kulankan maanta ay yeesheen mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsanaa doorasho madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulankani oo doorashada ka dhacday ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Mudane Madaxweyne Maxamed doorashadani oo ay ahayd qaab gacan taaga ayaa waxa lagu doortay Jeylaani Abuukar Jimcaale isla mar ahaantaasna lagu dhaariyay goobta doorashadu ay ka dhacday inaan daacad u ahay dalka dadka diinta dastuurka 6 gobol ee Soomaaliya inaan ilaalinayo amaanada waxa igu wallaahiya igu billaahiya igu tallaahiya baarlamaanka golaha hooyooyinka dhammaan waa salaamantihiin salaan kadib waxaan idin cadaynayaa anigoo hortiina taagan 6 gobol koonfur galbeed Soomaaliya in si cadaalad ah oo diinta waafaqsan in aan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Madaxweyne Maxamed waxa uu baaq u jeediyay dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya doorashadii aad doorateen musharaxii koowaad oo u soo istaagay jagada madaxweyne ku-xigeenka labaad dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo si sharaf leh aad u doorateen ixtiraam leh u doorateen qiimo leh aad u doorateen mahaddaas ayaan idin soo gudbinaynaa iyadoo idinku aad gutay waajibaad dastuuri ah haddana aad ayaad ugu mahadsan tihiin naga guddooma mahaddaas intaa kadib saad ogsoon tihiin maalintii aad i dhaariseen waxaa laga joogaa 5 bilood maantay ku eg tahay 5 inay wax la carinaynin wax la dhuumanaynin wax boobaynin wax la gabanaynin ayaa daliil u ah sanad iyo bar gogashii tiilay odayaashii u dhabar adeegay dhulka u jiifay oo maaragtay golaha guurtada ka mid noqday oo martiqaad u fidiyay shacabkan oo odayaashan halkan fadhiyo oo ka kala yimid 6 gobol oo martigeliyay nasiib darrada jirta waxa weeye shalay waxaa naloo keenay ayagoo marti ah dhinaca kale waxaa iyaguna kulan ku yeeshay guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayagoona ka hadlay qaabka doorashada maamulka looga magacaabi lahaa ayagoona sheegay in si dardar lah ay u wadaan maalimihii la soo dhaafay Cabduqaadir Ajuuke oo isagu ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxa uu yiri baarlamaanka maanta oo taariikhdu ay tahay 7 bishii 8 2014 waxaa la ii doortay inaan noqdo gudoomiyaha guddiga doorashada baarlamaanka markii la ii doortay ka bacdi fadhiyadii uu guddiga doorashada uu sameystay wuxuu soo saaray shuruudihii doorashada iyo qaabkii doorashada u dhici lahayd waxaana yacni xubnaha baarlamaanka kuwa danaynayo inay isu soo taagaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ay isu soo taagaan
in ay siifigoodii ay soo gudbiyaan maalinta sabtiga ah. ugu dambeyn gudbinta araajiga siifida waxay ku eg tahay maalinta isniinta ah saacaddu markay tahay 4 saac ay ku eg tahay. xildhibaanada koonfur galbeed ee 6 gobol dhammaan waxaan faraynaa ciddii yacni inay soo istaagto guddoomiyaha doorashada maxamed aadan socdaal TV-ga caalamiga Star magaalada Baydhabo. golaha munaasabad ay ku qalin jibiyeen arday wax ka barata iskuulka Suber ayaa maanta waxaa lagu qabtay isla magaalada Muqdisho. warbixintani waxaa warfaafinteeda inoo haya wariye Bashiir Xuseen Maxamed. xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ku qalin jibiyeen in ka badan 55 arday oo dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare isla marhaantaana uu soo qabanqaabiyay maamulka sare ee iskuulka Suber ayaa waxa ay maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. xafladan qalin jibinta ahayd ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano ka tirsan dhinaca waxbarashada, maamulka iskuulka, macallimiin, arday, waalidiin, xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah, bahda warbaahinta iyo marti-sharaf kale aad u fara badan. ugu horreyntii furitaanka xafladda ayaa waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Suber Ustaad Suhayb Cabdulqaadir Cabdi isagoona ka soo qaybgalayaashii xafladda uga sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray iskuulkani. halkan ka soo muujin doona wax fara badan oo maanta idinka cajab gelin doona. waxaa jooga maanta guddoomiyaha ardayda macadka, guddoomiye ku-xigeenkii, madaxii maaliyadda, afhayeenkii guud ee macadka ardaydiisa. waa u jeedaan boorarka siday ugu xardhan yihiin. halkan ayay imaan doonaan iyagaana idinkaga sheekeyn doona habka macadku u dhisan yahay arday ahaan, siday isugu xiran yihiin, iyo maamul iyo macallin iyo siday isku yihiin. waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa maanta. mana garanayo dareenkayga waxaan ku cabiro. farxad maanta noogu weyn ma laha inay maanta horteenna ka muuqdaan arday pride ah, arday la weji maanta aqoone, arday maanta ifaysa, arday waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. waxaa leeyahay ilaah haydin garab istaago. hambalyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay oo marti-sharafkii lagu casuumay xafladan ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka dalladda waxbarashada ee Soof Ustaad Aways Sheekh Axmed isagoona ammaan ballaaran u jeediyey maamulka, macallimiinta iyo ardayda wax ka barata iskuulka Suber Institute Commercial and Secondary School. lagu sheegay faahfaahin dheer lagu siiyey maamulaha Suber Ustaad Aways. waxaan leeyahay runtii dalladda Soof waxay u howlgashay ama ay u istaagtay taabagelinta sidii ay wax u barlaayeen. Ustaad Maxamuud Faarax Maxamuud waa mid ka mid ah macallimiinta iskuulka Suber. waxa uu dardaaran iyo guubaabo ku aadan dhanka waxbarashada u jeediyey ardaydii qalin jabisay iskuulkani. Soomaaliyeed dhan in aad jaanki aad ku samaysaan wixii la idin soo baray in aad meelo fadhiisanina. taas waxaa caddeyn noqonayso qofka haddii uu ka waxbarto oo uu meelo fadhiisto. jawga xafladda ayaa ahaa mid degan taa oo ay ka soo qaybgalayaashii xafladda ay ruwaayado kala duwan ku maaweelinayeen arday ka tirsan iskuulka oo ay ka mid tahay gabayo, geeraaro, baraambur iyo sidoo kale cayaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. gabagabadii xafladda ayaa TV-ga caalamiga Star wuxuu dareenkooda wax ka weydiiyey qaar ka tirsan ardaydii qalin jabisay. Bashiir Xuseen Maxamed, TV-ga caalamiga Star, Muqdisho. gudoomiyaha beelaha Arab Bari ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay colaadaha ka taagan waqooyiga Burco. warbixintani waxa ay noo soo diray wariye Mahad Faarax. gudoomiyaha beesha Cabdallah Arab ee gobolka Togdheer Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Caraale ayaa markii u horeysay ka hadlay xiisad colaadeed oo ka aloosan balliga diiriye guuleed ee waqooyiga Burco. halkaasi oo iska hor fadhiyaan laba maleeshiya beeleed oo hubaysan oo dhowaan iska hor imaad dhex maray. gudoomiyaha ayaa ku eedeeyay xukuumadda Siilaanyo iyo maayirka Burco inay ka dambeeyaan xiisada ka taagan deegaanka balliga diiriye guuleed ee waqooyiga Burco. waxaana ugu baaqay xukuumadda Axmed Siilaanyo inay arrintan si degdeg ah wax uga qabtaan taas oo ka dayriyay xaaladda ka taagan. gudoomiyaha beelaha Arab Bari oo saxaafadda Burco arrintan wax ka weydiisay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. waxaan ka hadlayaa in xaaladda deegaankaas
deegaankaas marka hore dhulka ilaahay baa leh mar labaadna meel walba ilaahay cid buu makansiiyey oo lagu ogyahay deegaankaas aad ogtihiin waa deegaan Cabdalla Arab beeshayda ayaa degan waa balli jiray ilaa 185 sano sida marka odayaashu ay ka taariikhayeen aan ka yarayn magaalana waxa loo aqoonsaday 2002 wili halkaad naga daawanaysaan waa Star TV daawadayaal stuudiisa magaalada London wariye Faadimo Yuusuf Saciid Taxadir oo ka tirsan wariyaasha Star TV ee magaalada Moosaaso ayaa xalay saqday dhexe hotelka ay ka deganayeen magaalada Garowe ay ka baxsadeen ciidamo iyadoo dib loogu soo celiyay xorriyadeeda warbixintani waxa noo eegaya Cabduriye Cabdirasaaq oo qadka telefoonka ku wareystay kadib markii la soo daayay ciidamada booliska ee gobolka Nugaal ayaa xalay saqday dhexe hotel ay ka deganeeyeen magaalada Garowe kala baxay wariye Faadimo Yuusuf Saciid Faadimo Taxadir oo kamid ahayd wariyaasha ka howlgala TV-ga caalamiga ee Star xaruntiisa magaalada Boosaaso Faadimo ayaa muddo 12 saacadood ka badan ku jirtay xabsi iyadoo aan ilaa hadda la sheegin sababaha xarigaasi loogu geystay goor dambe oo galabta ah ayaa lagu guuleystay dadaal dheer oo ay u galeen bahda saxaafadda iyo xubno ka tirsan familkeeda in la soo daayo khadka telefoonka ee magaalada Garowe ayaan ku wareystay ugu horreynna waxaan weydiiyay sababaha xarigaasi loogu geystay xilli dambe saqdhexe hayba guriga hotelka magaalada ku deganaa leeyimi hotelka qofkan ku deganaa baa lagu soo siiyay aniga gabdho kale oo horta la wariyo hurday intii ma garanayo idama ku labisan dadka groups ay dawladda oo sheeganayo xilligaas inay ku yimaadeen maxaa la dhahay sarifka xilliga uu amarkiisii ayaa igu yimid guriga inkastoo marka turjunta la geystay kadibna waxaa la sameeyey hotelka laga shaqeeyey waxaa ayaana ku maanta baarashooyinka inta dowladnimo asan ogeyn warqadii loogu furay hay'adda sharciga loogu furay lagu sheegay middaas xirashay ama dambiga kale lagu sheegay ama waxa ka eedeysantaa ciidamadaas xagee bay ka tirsan yihiin oo ay amarkaas ka qaateen ciidamada saldhiga bartamaha oo bay ka tirsan yihiin sarifka booliska ayay sheegeen inay amarka uu soo siiyey ka gadaal mar dambe maanta ah laakiin maana ogi leerankaas waa arrin baaritaankeeda hadda hore wixii dambe kasoo furan kasoo furan doonaa laakiin waa arrin lagu gudbiray weli oo arrinta sarifkeeda ee lagu gudbiray markii ay hotelka kala baxeen sida la ii sheegay xilli saqda dhexe oo habeenimo xagee bay ku geeyeen waxa la geeyay saldhiga bartamaha waxaana lagu xareeyay iyadoo wax xitaabada shaqada laga sameeyay qol mugdiya aan garanayn wax ku jira ilaa si oo isbitaalaha meelo magaranaysa runtii daaqad yar oo kooban leh isaga nadaafad ahaantiisa ay aad u muuqato taas lagu xareeyay kadibna bisha laga qafilay waan gartay sidee bay kula dhaqmeen intii aad gacanta ciidamadaas ku jirtay horta adisaaqo ma jirin intaan meesha joogay wax guri waxyaalo qaarkood waxaa jiray oo kamid ahaa waxaa la geliyay qol mugdiya aanan garanayn hay ma jiraan jirdil iyo arrimo noocaas markaan baxay jirdil waa lagu sameeyey intaan awtaas markaa xilliga lagu soo sameeyey aan sheegay laakiin taas halkaas lagu sheegay wax dhiga ma siimaanaan waan gartay goorma lagu soo daayay maxaase lagu soo daayay oo aad iminka banaan ku joogtaa ma damiin mise waxba waa lagu waayay runtii arrintaasi adigu bahda saxaafadda iyo qaar kamid ah dad faamilka oo kamid ah xildhibaanada weliba odayaasha haldaa dawladda ugu jira ayaa waxay galeen arrintaasi adigu laba dhinac saas tahay waa laysoo daayey hase ahaatee wixii loogu furay iyo sababtii xilligaas sidii qof argagixisho camal oo kalaa gurigeyga loogu soo dhacay sawda 12 habeenimo dadkaankasi qof maxaa la dhahay anigu saxafiga xuquuq leh maxaa la dhahay dembi aanan gelin haddana gurigeyga loogu soo dhacay waa wariyihii ugu horeeyay ee Puntland lagu xidho tan iyo intii uu xilka qabtay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Cabdirasaaq Cabdulqaadir Maxamed Star TV Buuhoodle waa tahay daawadayaal markaana wararkii caalamka tiradan 1.2 bilyan oo kombiyuutarro ah oo muddo gaaban lagu jabsaday hay-adda ka shaqeysa ammaanka kombiyuutarada adduunka oo laga leeyahay Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in kooxo ku sugan Ruushka ay jabsadeen 1.2 bilyan oo password iyo ciwaano si gaar ah loo leeyahay kooxahan waxa ay si gaar ah u dhaceen macluumaad muhiim
ah oo ku keydsan ciwaano ay leeyihiin dowladda iyo weliba shaqsiyaad caan ah ayaa lagu yiri warkan kasoo baxay Hall Security oo si faahfaahsan ugu hadlayay dhibaatooyinka ka dhashay arrintan. tiro ahaan waxa ay dhan yihiin ilaa 20 ruux oo ku sugan koonfurta iyo bartamaha Ruushka. si gaar ah waxay u beegsadeen ilaa kumanaan website oo adduunka daafihiisa laga leeyahay ayuu isna yiri Alex Holden oo madaxa ka yahay hay-adan. waxaa kaloo uu mas-uulkan sheegay in kooxdan ay bilaabeen habab casri ah oo ay ku jabsadaan kombiyuutarada oo uu sahlayay in markiiba ay la wareegaan kombiyuutarka iyo weliba macluumaadkiisa, isagoo ka digay khatarta kooxahan. ilaa iyo hadda waxaa khasaare arrintani kasoo gaartay ilaa 4200 oo website kuwaasoo oo dhibane u noqday in la baxo xogta ku jirta sida lagu cadeeyay warbixintan, iyadoo muddo 7 bilood gal lagu hayay kooxahan iyo sidii loo ogaan lahaa isticmaalayaashan. ugu dambeyntii kooxdan oo la magac baxday tuugada Russia David Caberford ayaa lagu cabsi qabaa in ay gacanta ku dhigaan kombiyuutarada laga isticmaalo aqalka cad ee Mareykanka, waxaana mar horeba sii bilowday qorshayaal looga gaashaamanayo sida uu kusoo waramay New York Times. waa tahay daawadayaal, warbixintaasi ayaa noogu dambeysay warkeena aan idin akhrinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. intaan warkiisa ku kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaadna u diyaar garowdaan faalada warka. waa tahay daawadayaal, kulanti wacan oo wanaagsan mar kale. waa anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad oo maanta faalada idin soo diyaariyay. alaaba waxaad noogu barataan warka kadib faalada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa qodobo ay ka mid yihiin sidee loogu gudbi karaa dhibaatooyinka lagu hayo wariyeyaasha hadday ahaan lahaayeen xariga iyo hadday ahaan lahaayeen badilalka. sidoo kale faalada qodobada aan kusoo qaadanayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay wareysi gaar ah siiyay ayaa sheegay in ay wax weyn ka tari doonto kulankan uu la yeeshay madaxweynaha Barack Obama iyo wasiirada wadanka Mareykanka iyo kuwa Afrika, iyo sidoo kale madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo heshiis ka gaaray khilaafkii horey u dhaxmaray, iyo sidoo kale qodobo kale oo aan idin hayno. waxaadna naga soo wici kartaan telefoonka shaashada idinkaga muuqno idinkooba alaaba fikirkiina hawada inoo soo mariya. faaladeena qodobka ugu horeeya oo aan rabno maanta inaan gogdhig ugu dhigno waa sidee loogu gudbi karaa dhibaatooyinka lagu hayo wariyeyaasha. daawadayaal, anagoo og in wariye ka tirsan shaqaalaha Star TV ee magaalada Boosaaso lagu xiray isla magaalada Garowe iyadoo halkaasi ku jirta waajibaadkeeda, ayaa hoteelka loogu soo galay xalay saqdi dhexe iyadoo xilligii dambana maanta loo soo daayay xuriyadeeda. taasina waa qodobka aan rabno kan ugu horeeyo faaladeena aan kusoo qaadanayna maanta. sidoo kale sidaan ognahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sugan wadanka Mareykanka isagoo ka qayb galay shir ay isugu yimaanayeen wadamada Afrikaanka kaasoo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha wadamada Afrika, iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayo maanta shirkoodii golaha wasiirada oo maanta ka hadlay handis sharciyeedka xakameynta hubka baarlamaankana u gudbiyay siday u meel marin lahaayeen. qodobadaas ayaan daawadayaal ku haynaa faaladeena caawa. waxaadna naga soo wici kartaan telefoonka shaashada ku qoran idinkoo alaaba nagala qayb qaata. waxaanu jecelnahay daawadayaasha inta aan hawada ku jirno inaan ka faa'iideysano waqtigeena, isla markaana aan qof walba markuu soo wactamo inuu markaasi noo fududeeyo si markaasi aan waqtiga aan ugu faa'iideysano aan markaasina ay daawadayaal badan ay naga qayb qaataan. bal daawadaha ugu horeeya ee qadka telefoonka. halo walaal mi maqashaa? halo haddaana maqasho codkaaga kor noogu qaad. waxaan filayaa daawadahaasi in codkiisa uu aada inoogu yaryahay. waxaana jecelnahay daawadayaashana soo wacaya markayna soo wacayaan bal inay TV-ga iska gaabiyaan ama iska damiyaan si markaasi aan khadka telefoonka aan iskala soconno. haddii aan mar kale idin dulmaro bal daawadahan kale ee khadka ku jira. halo assalaamu calaykum. wacalaykum salaam waraxmatullah. magacaaga iyo halkaa naga soo wacayso? magaceedu waa Cabdi Yusuf Caddo, jooga Finland. Cabdi, kusoo dhawow faalada Star iyo qodobka aad rabto inaad nagala qayb qaadato. aada umaadsanta qodobka waxaan rabaa inaan idinla qayb qaato gabadha lagu xiray Puntland maanta.
waa gartay xalay saqdii dhexe hotelkeeda lagala baxay bal sidee u aragtaa dhibaatooyinkan lagu hayo suxufiyiinta oo markaasi ku jira waajibaadkooda shaqo inay gutaan aada aad uxumartay gabadha suxufiyada Star TV u shaqaysay in Puntland lagu xayaleeyno waana markii ugu horeysay oo lagu xaleeyay gabar saxafiyad ah Puntland tan iyo intuu qabtay xirka madaxweyne Jaas marka waxaan ugu baaqayaa maamulka madaxweyne Jaas inay saxaafadda xorriyadeeda ay ilaaliyaan صح ma isleedahay mas-uuliyiinta markay suxufiyiinta ay wax ka sheegaan mas-uuliyiinta markaasi dowladda hadday ahaan lahaayeen madaxda korkore iyo kuwa hooseba in markaasi markii laga sheego waxa jiro inay markaasi ay u geysanayaan xarig sax waaye maamulada iyo deegaanada xagga oo Afrika ay ku badan tahay ishaad Soomaalida xagga qaasatan wariyaasha markay ay dhahaan runta ay soo sheegaan inay dhahaan ishaad maxaa runta daha uga qaadaysan waxay rabaan in been la buubuniyo marka waxaan u baaqayaa in maamulka ay ka digtoonaadaan saxaafadda caburinayaan iyo dadka qaasatan dumarka ay habeenimo saqada dhexe kala baxayaan hoteelada waa gartay cabdi qodob kale ma jira aad rabto inaad isagana aad ka wax ka tiraado waa jira qodobkaas kale waxaa qodobka madaxweyne Obama inuu jira umaleena madaxweynaha Soomaaliya oo haatan ku sugan Mareykanka oo sheegay in wax weyn ay shirkaasi ay kaga soo faa'iideysteen midda kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Mareykanka wuxuu u tagay howlo shaqo qaasatan wuxuu sheegay hadda IPO-da dhageysanaya maruu dhahay ishaad cudurka Ebola in laga joojiyo waa ishaad ciidamada Afrika barigeeda dhexe ka imaanayo sax in laga hortago si ay Soomaaliya u soo gaarin taas waa muhiimadeeda laakiin hadda shirka oo Obama la qaatay waa shir aad Soomaaliya miro u keeni kara qaba aad baa u maasan tahay cabdi oo filan naga soo wacay cabdi waa ku mahad celinaynaa sawicitaankaaga iyo fikirkaagaba waa tahay daawadayaal weli waxaan ku jirnaa faaladeeni qodobada aan kusoo qaadanay haddii aan mar kale aan idin dulmarana waxay ahayd sidee loogu gudbi karaa dhibaatooyinka lagu hayo wariyayaasha iyo sidoo kale madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo heshiis gaaray khilaafkii horey u dhexmaray iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay shirka wadanka Mareykanka uu tagay inay wax badan ka soo faa'iideen dhibaatooyinka wariyaasha haddii aan wax yar ka taabto wariye ka tirsan shaqaalaha Star TV oo lagu magacaabo wariye Faadimo Yuusuf Taxadir oo kamid ah wariyaasha TV-ga Star ee magaalada Boosaaso ayaa ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay u taxaabeen xabsiga iyagoo xalay saqdii dhexna kala baxay hotel ay magaalada ka deganeed Faadimo ayaa magaalada Garowe u timid ka qaybgalka shir ururka suxufiyiinta Puntland iyadoo galabta xorriyadeeda loo soo celiyay dhibaatooyinkani wariyaasha way soo laabteen wax badan wariyaal badan ayaa la xirxiray kuwa badan ayaa dil loo geystay marka sidee dhibaatooyinka wariyaasha lagu haayo loo joojin karaa ama sidee looga hortagi karaa waa qodobkeena ugu horeeyay aan kaga hadlaynay faalada iyo sidoo kaleeta madaxweynaha Soomaaliya oo asagana sheegay in shirkan ay u tageen wadanka Mareykanka ay wax badan kaga faa'iideen sidoo kaleeta madaxweynaha Siilaanyo iyo Muuse Biixi oo heshiis gaaray khilaafkii horey u dhaxmaray labada garab ee xisbigan kulmiye isku hayay oo maanta si rasmi ah isku cafiyay isla markaana heshiiyay sidii xukuumadda iyo xisbiga u wada shaqeyn lahaayeen maxay ku soo kordhin kartaa ayadana heshiiskani ay gaareen maanta madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi qodobadaas ayaan daawadayaal idinkugu haynaa faaladeena waxaadna naga soo wici kartaan telefoonka hortiina ka muuqda idinkoo fikirkiina hawada inoo soo marinaya sidoo kaleeta ciidamadan booliska ee gobolka Nugaal bal daawadaha qadka ku jira haddii aan u baaqo hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullah magacaaga halka iga soo wacaysa waa Maxamed Sharaf Star TV Copenhagen maxamed ku soo dhawow Star aad baan ugu dhawahay waxaan aad uga xumahay wariyadan lagu xidhay magaalada Garowe oo wariyaasheena TV Star صح markaan waa wax jiro imaka ku soo batay geeska Afrika waliba Soomaaliya oo maaragtay suxufiyiintu markay hadalka runta ka sheegaan صح markiiba dee afka la caburinayo lagu dhejinayo laakiin ummaddu inay kacdaa fiican oo ka gilgilato waxyaalaha maaragtay sameynaya xukuumadaha ka jira Soomaaliya dhammaantood
صح sidaa sheegtaba maxamed waxay wareysi gaara siisay idaacadda VOA iyadoo markaasi ugu warantay wixii ka dhacay markay idaacadda ay soo galeen ciidamo hubeysan taas ayaa loo aaneynayaa inay ku lahayd balse haddii mas-uuliyiinta runta la sheego maxay wariyaasha markaasi ay u xirxiraan waxay u xidhaan kole iyadu waxay sheegtay wixii jiray ila waxaana waa la arkayaa inay ciidamo soo galeen hawshii la joojiyey tvgii Puntland ee socday ilaa hawshu way istaagtay wixii waa la arkaya waa la maqlay ma wax iyadu ay been ka sheegaysana maaha laakiin waxay hadii marka xilli loo soo galan waa xilli xun oo dumar ha noo waday xilli dumarka loo tagana maaha waayo de xagga labiskeeda iyo waxyaalo badan horta in laga fikiro xagga diintana way fiican tahay ma ogtahay صح marka waxa fiican qofku in waa la garanaya magaaladaas laga qabsan karaa ama waa loo yeedhi karaa ama warqad baa loo diri karaa laakiin sidii ay argagixisa soo gashay wadankii ina habeen lagu duldaato imaka xagga waxa jirtay imaka Soomaaliland oo kale saas oo kale ka jirta iyo marka Puntland way soo gaadhay meel kalena marka ma hadhin bay marka way soo wada raaceen dhamaantii Soomaaliya runtii sidaan ognahay inta uu haystay arintani waa markii ugu horeysay madaxweynaha Puntland Cabduuli Gaas uu haysto muddadan in falkan uu dhaco runtii wilina ma aysan ka hadlin dawladda bal halka maxamed maxaad isleedahay hadii aad fiiriso sidee markaasi waxaan loo yareyn karaa ama loo joojin karaa wallahi doorta lama joojin karaa laakiin waxaan oran lahaa suxufiyiintu inaan mid ahaano mar walba ururano waan leenahay ururadeenuna mar walba heegan bay inoo yihiin waa inaan la joojin wacdiga inuu waxaan nahay muraayadii ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto wixii xaqiiqada jirtana ummadda aynu gaarsiino laga baqan lagana gaban marka waxaan oran lahaa nimankan ururada iyo maaragtay madaxdani waxay afka ka sheeganayaan dimuqraadiyad wax dimuqraadiyada jirta ma jirto laakiin marka xaqa iyo runta la sheegayna waxaad ogaanaysaa in aan wax dimuqraadiyad jirin laakiin ay tahay qof walba dictator hoosta ka wadayeen dhamaantood maxamed sharaf aad baa u mahadsantahay waanu ku salaameynaa waa wariyaha u fadhiya Star TV Copenhagen maxamed sharaf oo runtii ka qiirooday arintan ay ku dhaqaaqeen wariyaha lagu xiray ee ka tirsan shaqaalaha Star TV Faaduma Taxadir ee magaalada Boosaaso runtii sida uu sheegana waa wax markaasi aan ku habooneen qof dumar habeen hotelkeeda ayadoo iska jiiftaan diyaarsaneen in inta loo imaado markaasi halkaas laga qabto bal daawadaha xiga ee qadka ku jira hello Hello, assalamu alaikum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Magacaaga ka soo wacayso? Walaal ma jirto meeladan jooga Ingiriis kamida. Waa gartay magacaaga? Hooyo Soomaaliyeed baan ahay. Hooyo Soomaaliyeed ku soo dhawo faalada Star. aad iyo aad baan ugu dhawaad salaamaya baan idin salaamaya wallahi waxaan ka xumay horta wariyaasha waan inantaa horta waan ka xumahay in kastoo la soo daayay inantaa Puntland u dhalatay la gurigeeda lagala baxay marka kulay dawladda laftigooda waxa weeye in iyaguna kulay dawladda marka meesha ka tirsan yihiin iyo asluubta inay ilaaliyaan way fiican tahay wariyaasha in la xaq dhowrano waa muraayadii dalka in la xaq dhowrano way fiican tahay marka mar haddii la soo daayay alxamdulillah waxaan jeclahayna in wariyaasha iyo qof kasta oo wadanka ku nool la hagaajiyo oo la xaq dhowro waxaan kaloo ka hadlayaa madaxweyne Siinaanye iyo ninka la yiraahdo maanta shiixisoo kulmiye aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa kulmiye maanta markii horeba wax yaro daabu isku hayeen ma ogtahay waxbay ku yara kala aragti duwanaayeen maanta way ka heshiiyeen oo sheekadu way dhamaatay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waana salaamaya gabar Somaliland ahay Siinaanye iyo xisbigiisa iyo Musabixi iyo kulli waan salaamaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay Soomaaliya meel ay joogto ha guuleysato insha Allah idinkana aad iyo aad baan idin salaamaya anagana waa ka gudoonay aad baa u mahadsan tahay hooyo Soomaaliyeed oo Manchester naga soo wicisay oo runtii ayad laftirkeeda ka qiirootay wariyadan lagu xiray magaalada Boosaaso ay u shaqeyn jirtay Star TV ee Garoobe xalay loogu soo galay hotelka ay ka deganayd magaalada Garoobe aad baa u mahadsan tahay daawadayaal wali waxaan ku jirnaa faaladeeni Star aan ugu talagalnay faalada alaaba warka kadib inaan markaasi ku soo qaadano wixii markaasi maalinkaasi ee taagan oo dhaco oo aan isleenahay daawadayaasheena waa kaga faa'iideysan karaan bal daawadaha xiga ee qadka ku jira hello mi maqshaa halo aniga ha waa ku jirtaa si toos magacaaga halka iga soo wacayso halo walaal maana ila hadlaysaa adigan kula hadlayaa TV-ga iska gaabi ee qadka telefoonka igala soco waan gaabiye walaal waxa ila magacayga Maxamuud Ibrahim baa dhalada waxaan ka hadlayaa Faransiiska Maxamuud ku soo dhawo faalada Star TV marka waxa walaal aan horta ugu horeyn hambalyeynaya heshiiska ay galeen xisbiga kulmiye maanta sax
waxa aan se intaa ku darayaa oon leeyahay kulmiyow marka horeba isku weydaan haynin siyaasadda waddanka lagu hogaaminayo ee waxa isku haysateen waxyaalo dhexdiina ahoon aada u fool xun sax mase ka heshiinaysaanoo talow dhabma tahay waa gartay awalba muuse biixi mar qura lagama qaadin oo lama odhanin guddoomiye xusbiga maaha sax hase yeeshee mas-uuliyaddiisa ayaa dusha lagaga haystay oo la qasbayay isagoo hogaamiye lagu magacaabaya haddana waa gartay bal sidee adig marka aad u aragtaa maadaama heshiiskan uu dhacay liis cafiyey markaan ma isleedahay si fiican ayaa loo wada shaqeynayaa oo horey ayaa loo sii soconaya waxa weeye haddii horta kulmiyo lug weyn baa gooday dhibaato weyn baa ku dhacday taageerayaashiisii runtii oo waxaa kala yaac badan baa ku dhacay waxaan se qabaa ilaahay lagama quustay haddii ay heshiiskaasi heshiis runa yahay sax oo sida madaxweynuhu ugu madax bannaan yahay shaqadiisa wasiiraduna shaqadooda ugu madax bannaan yihiin guddoomiyuhuna booskiisa awoodda uu u leeyahay xusbigiisa ugu madax bannaanaado sax weliba dadaal badan iyo muujin badan oo cadaynaysa taa laga arko taliska muuse inuu xor yahay inay way soo noqon karaan laakiin haddii ay tahay taladoodii ahayd muuse guddoomiye ahow 4 wasiirna ha maamushaan wax walba iyo madaxweynuhu waxay soo celin doontaa ma jirto waanu jecelahay kulmiyo inuu soo noqdo xusbigaanu ku maranaye waxaan leeyahay xusbi kulmiyo runu heshii waa gartay anagana waan rajaynaynaa aad baa u mahadsan tahay adigoo naga soo wacay weliba faransa waan kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga iyo taladii aad markaasi aad hawada u marisaba haddii ay ahaan lahaayeen madaxweyne Siinlaayo iyo Muuse Buuxiba daawadayaal weli waxaan ku jirnaa faaladeeni warka qofkii raba inuu talo noo soo diro wuxuu noogu soo diri karaa emailka talo@ ayuu noogu soo diri karaa oo hortiina ka muuqdo email talo@smcob.tv ayuu inoogu soo diri karaa cidii ay dhaaftaan warkan iyo faaladana wuxuu ka daawan karaa page-ka website-ka aan ku leenahay www.smcob.tv waa tahay daawadayaal qodobada haddii aan mar kale aan dul maro bal haddii dad markaasi aysan la soconin ay gadaal markaasi kala soo qabsadeen sidee loogu gudbi karaa dhibaatooyinka lagu hayo wariyaasha waa qodobkeena ugu horeeyay faalada aan ugu hadlaynay iyo sidoo kale madaxweyne Siinlaayo iyo Muuse Biixi oo heshiis ka gaaray khilaafkii hore u dhaxmaray halkaasina la isku cafiyay iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay shirkan uu tagay wadanka Mareykanka inay wax badan ay kaga soo faa'iideen isagoona sheegay in ay kaga hortagi doonaan cudurkan laga cabsi qaba ee Ebola dhibaato faraban ku haya wadamada Liberia iyo Sierra Leone qodobadaasi ayaa daawadayaal idinkugu heenay faaladeena waxaadna naga soo wici kartaan telefoonka shaashada ku qoran idinkoo markaas hawada inoo soo marinaya bal fikirkiina bal daawadaha xiga ee qadka ku jira halo assalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullah magacaaga halka iga soo wacaysa walaal magacaygu waa cabdi waxaan joogaa Scotland cabdi Scotland kusoo dhawo faalada cabdi waa dhowahay walaal anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ay suxufiyiinta sax midka weliba local maahan xogo yar waxaan rabaa qaybta international inaan u gudbo Soomaaliya runtii waxaan u sheegi lahaa inay iskaraameeyaan shalay waxaan ka daawanayay telefishinka la yiraahdo CCTV meeshan la yiraahdo isbitaalkan xaawataako in ma aragtay Soomaaliya la yiraahdo waa wadanka kufsiga number 1 ka ah waa wax aad iyo aad u foolxun wadan dhan oo muslim ah dumar Soomaaliyeed oo muslim ah oo ma aragtay fara badan oo meesha foolxumadooda iyo karaamaxumadooda dad muslima looma ogolo wadamada muslimka inaan ogahay ma ogolo waxaas oo kale inay maaragtay ka dhacaan inay ka dhacaan marka marka waxaan dhihi lahaa wasaaradda warfaafinta corruption weyn baa ka jira marka Soomaaliya waxay warba ka warhayaan ba malaha meesha corruption aan caadi ahayn baa ka socda waa inay wax ka qabtaan kuwa hadda gabadha ku xiranna waxaan كل ستار تي في وتلفزيون كانوا كحرناهي كل ما دام هدي لسوس تيداي مركا waxaa umaleynaa inaysan meesha wax dhib aysan ka jirin laakiin waxa uu foosho xun waxa weeye waa sawirkiina iyo muuqaalkiina iyo dumar Soomaaliyeed oo meel u soo aruuriyay dad qaarkood inay lacag ku qaataan waxyaalahaas oo kale kufsiga waxa aad iyo aad u fool xun hadda kor mid ay dawladda Soomaaliya ay ku xirto waan ogeyn midka shabeellaha laakiin midda international kaaba kaga sii daro hadda YouTube ku qofku uu gali karaa waxa uu ku qori karaa African Live about this hospital da lagu qori karaa midkaan xaawataako hospital da wixii ka soo baxa fiiri adiga African Life TV ga research garay marka waxa sheegaya marka inay run tahay inay been tahay arki doontaa inta eray oo qodob uu ninkaas uu ku soo celiyay foolxumada badan kufsiga Soomaaliya
halka uu ka sheegay aad iyo aad buu farxumay waa gartay cabdi oo Scotland naga soo wacay cabdi aad baa u maasan tahay runtii wixii aan ugu soo biirisay kulay waxaan filayaa daawadayaashan inay ka faa'iideen waxaan jecelnahay sidaad ka dhawaajisay in wariyaha la soo daayay galinkii dambe maanta runtii aad baan ugu faraxsanahay haddii aan nahay shaqaalaha Star TV iyo ka ahaa wariye ahaanba in markaasi aan wariye kamid ah wariyaasha Star TV in markaasi xuriyadiisa oo dib u helo daawadayaal wili faaladeeni ayaan ku jirnaa inkastoo aan soo gaarnay qaybihii dambe faalada waxaanu jecelnahay haddii markaasi aan dhowr qofood aan siin karno fursad markaasi ayagana bal fikirkooda habada noo soo mariyaan qodobada aan kusoo qaadanay daawadayaal faaladeena waxaan hordhig ugu dhignay sidee loogu gudbi karaa dhibaatooyinka lagu hayo wariyaasha iyadoo aan ognahay in mar walba wariyaasha loo geysto haddii ahaan lahayn xarig iyo dilalba sidee loogu gudbi karaa in markaasi bartaalmaameed ay iska noqdaan wariyaasha sidoo kale waxaan kusoo qaadanay madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuu ku dadaalayo in cudurka Ebola oo Soomaaliya aysan soo gaarin isagoona sheegay shirkan ay u tageen Washington in markaasi ay wax badan ka faa'iiday dawladdiisa sidoo kale madaxweyne Siinlaayo iyo Muuse Biixi oo heshiis gaaray khilaafkii horey u dhexmaray labadooda labadii garab xisbigan kulmiye isku hayay oo maanta ayagana si rasmi ah isku cafiyay isla markaana ku heshiiyay sidii xukuumadda iyo xisbiga ay u wada shaqeyn lahaayeen ma la dhihi karaa markaani waxay tiigsanayaan bal haddii labada garab ay wada khilaafisayeen in markaani ay wada shaqeeyaan waa tahay daawadaha khadka ku jira ee telefoonka halow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga yaalka iga soo wacaysa walaal Axmed baa la waxaan ka soo wacaya Birmingham Axmed Birmingham ku soo dhaw Axmed faalada walaal waxa weeyaan si fiican baa hawsha wada waxa weeyaan barnaamijkan Star TV aad baan ugu xidhay ayaan ugu xidhay daawayaashiisa aad ku daawanayaan waan ku salaamay adiga waan ka guddoonay saaxiib bal caawa qodobkaad isleedahay markaasi wax ka taabanaysid walaal waxaan doonayaa inaan taabto oo dareenkayga aad ku xistay inaan tahay wariyaha ee la xidhay sax horta kulli wariyaashu Soomaali meel ay joogtaba horta way iska dulmayeen ma garatay waa gartay laba arrimoodna way noqonaysaayoo dulmigaas horta waa mid iyagu ay lafooda ku kasbanayaan weeyaan midna waxa weeye mid ma garanaysaa burburkan dee waddanka ka dhacay ay qeybtooda kaga jirto maogtay sax haddii aan ku horeeyo tan iyaga ay lafooda ku kasbanayaan walaal waxa weeyaan way ogyihiin maanta inaanu Soomaaliya waxa weeyaan madaxdii aanay safe ahayn iska daa cid kale ma garanaysaa sax marka iyaga laftirkoodu horta wararkan ay sheegayaan bal iyagoo horta cid kale aan u bahalay horta naftooda ku seefgareeyaan sax oo war aan hadhow toola ku soo noqon doonin oo aan iyaga dib u keenin aan baan dawladda ku xidhin sida inaan tan oo kala dee sida og tahay qofka wariyaha markuu shaqadiisa gudanayo wuxuu sheegaa wixii markaasi jiro mas'uuliyiintana hadallo waxaa jiro markaasi ayaga aysan ku qanacsanayn haddii la sheego oo kaleeto ay markaasi u geysanayaan xarig balse markaa wariyataha waa ku qasbantahay in waxa aad aragtay xaqiiqda aad sheegto walaal haya waa ku qasbanay waa runta waa si wanaagsan ma u dhigto waa runta laakiin walaal haddii aan naftaydi halis ku galaysa ka warar bal adaan weydiiyey taasna waa dhibaato meesha ku jirto balse waxaan rajeynaynaa markaasi in wasaaradda warfaafinta arrintaasi ay wax weyn ka qaban doonto insha Allah in yana kugu sii daro walaal inantan aad baan ugu xumay anigu inagu dumar waliba iyadoo wariye ay la xidho walibana waa iyar ma garanaysaa wax waa kiis waliba iyadoo inana hadana labiyo toogii haweenimo lala baxo hotel shaacirta dadka islaamka waliba Soomaalinimada oo aad loo yaxsoodo moogta inan waxa weeyaan lala baxayo la jigdilay dumarku qiimaha agtiina kaliya waynu dareemi karnaa moogta sax marka waxaan leeyahay xukuumadda uu Cabdiwali hogaamiyo dan nin tafo active waa wada hayd markii kaabin ku jirtay waxa weeyaan deegaanka sharafteedu soo celi waxa weeyaan xaal laga bixi hawsha ayada ciidamada sameeyay soo taaynan dhan oo sharaf iyo karaamada laga toogay inuu kala baxday gurigoodii moogtay wax laga xishooday weeyaan waa la sii daayay hadeertaan galinkii dambe maanta waa la sii daayay taasna waan ku sheegaynaa midda kale qodobka kale hore u gal qodobka kale waxa weeyaan walaal igu soo celi qodobka kale waa madaxweyne Siinlaayo iyo Muuse Biixi oo heshiis gaaray waan soo dhaweynaa qolooyinka waan soo dhaweynaa kulay dadku waxay u baahan yihiin horumar marka lama baahna isku qabsi iyaga laftirkooda laakiin ma jeclay inaan ka hadlo laakiin inaan taas u baadareen yara ka aad baa u mahadsan tahay waan ku mahad celinaynaa faalada aad nagala soo qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa in faalooyinkeena dambe aad nagala qayb qaadato
aad baa u mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii faalada waana ka xunnahay daawadayaasha khadka ku jira iyo kuwa rabay inay soo galaan ee u suuragali weysay waa anigoo ah cabdiraxmaan yuusuf daacad oo idiin soo daarayay faalada iyo farsamada oo maxamuud inoo fadhiyey dhammaanteen oo isku duuban haddii aan naabahda Star TV waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.